waxa shayga dhaqaajiya marka uu ku dhaco xoog ka awood badan midka uu ku taagan yahay maskaxdaada waxa bedeli kara markay noloshu ku tusto in aad cashir iyo wax lama ilaawaan ay ku dhigto oo ay kugu qasabto inaad bedisho waxa kale oo bedeli kara in erey wanaag ah ama nolosha wax ka tusaya oo maskaxdaada saameyn ku keeno noloshaaduna ay isbedisho oo ka dhigto mid ay maanta tahay mid 100 jeer ka qurux badan waxa ila soo xiriiray oo aan rabaa inaan qisadiisa wax yar oo kamid idin la wadaago mid kamid dadka igu taxan oo mar dhow sidoo uu sheegay igu soo biiray laakiin xilliga uu igu soo biirayay ama meesheeda ku soo taxmayay uu ku jiray isbedel nololeed iyo dib u qaabay noloshiisa ah waa wiil ka soo jeeda koonfur galbeed oo kamid ah asxaabteeda qaaliga waan salaamaya magaciisa waxa la yiraahdaa Ali Xuseen wuxuu ka tagay isagoo dhalinyar oo aad u yar oo waliba maaragtay aan haysan taa kula fiican oo ka tagay koonfur galbeed wuxuuna galay dalka Kenya xilligaas shaqooyin hoose ayuu qaban jiray ugu dambeyntii wuxuu noqday nin xoog leh oo hadda markii u dambeysay meesheeda ku taxmay waxa uu ka shaqeynay hotel ku yaala Nairobi sida uu sheegay wuxuu qaadan jiray $10 lacag ah gelina uu shaqeeyaa inta dambana waxa weey dhalinyartiisa iyo magaalkiisu iska jooga sida uu qisadiisa iiga dhacay wuxuu ku taxmay bartaydan waxa uu dhageystay dhiirigelinta iyo wanaaga aan inta badan dhalinyarta Soomaaliyeed ku yiraahdo noloshiisa bedila oo idinku mas'uuliyadiina qaata sidaas oo si lamid ah wuxuu ii sheegay in uu dib qaabeyntii uu sameeyay noloshiisa ay wax badan ka tartay erayadii aan xilligaas anigu aan ma aragtay cid gaar ah u wadin laakiin bulshada aan u waday laakiin qofkii de hadba wixii ay wanaagaasi u qaatay u noqonaysay ay qayb ka noqday waxa uu ii sheegay mid aniga laftigaygu ay ii noqotay 10 inaan uga faa'iideeyo dadka igu xiran noqotay in uu $10 oo meesh ka qaadanay oo markii awal uu qaato isagii asxaabtiisu ay ku kala bixi jireen uu u sameeysto saving oo kaydsi ka dhigto isaguna uu maaragtay u soo guuro meeshuu ka shaqeynay qol kamid ah oo xillina uu shaqeysto xillina maaragtay oo waxbarasho aado wixiisina uu kaydsado noloshu waa maalmo waxa haddana soo maray fursad ah xilliyadii ay hadda ciidu soo dhaweyd in ay dhar ay keeneen qolo Hindi ah ay u baahdaan qof iibgeyn ugu sameeyay waqtigii uu firaaqada ahaa buu iibgeyn ugu sameeyay sida uu sheegay lacag fiican buu ka helay aad iyo aad buu u mahadsan waana fikradiisa iyo maaragtay halgankii uu galay lacagtiina wuxuu ku maalgashaday inuu dhul ku gato dhulkiina hadda mar dhow shirkada ka kireysatay lacag fiican oo maaragtay $500 ku dhawaad oo ka helaa bishii isaguna bartiisii buu ka shaqeystaa dhalinyarta Soomaaliyeed kalena waxaan leeyahay war noloshiina waa bedeli kartaane Ali Xuseen tusaalaha inoo noqdo shalay wuxuu ahaa qof $10 qaato 10kiisana baabiya maantana waa nin dhulna leh waxa weey ganacsi fiican ka shaqeynaya waxna sii baranaya qof walbana waxaan markasta wax ugu soo gudbinayna waxay tahay war noloshaada adiga ka mas'uula qofka kugu xeeran iyo dadkaas oo dhan midna wax kama tarayo noloshaada 100% mas'uuliyadeeda qaado isbedelkeega qaado adigu noqo qof halganka nolosha ee maanta ka jira kamida dhaliya qof walba wuxuu rabaa meesha aad rabto rabaa laakiin halgan baa lagu kala hormaraya ama helo wadaadow waxaan cidi ku hawshoonay nafta loo hantaaqa waxaad higsa leedahay adiga laga rabaa hadii aad rabto inaad xidigaha gaadho wixii aad ku gaar lahayd inaad ka shaqeysato cidi intay lugaha ku qabato ay kor ku qaado kuma gaarsiin karto fadlan aynu dadaalo aynu boorka iska jafno aanu shaqeysano aanu noqono dad umadeena u noqda garab iyo garab istaag u sameeyo noloshoodana meel fiican ka gaar aad iyo aad baad u mahadsantii saaxiibayaal muuqaalka inoo sii share gareey barteena YouTube ee profile ka saarana booqo subscribe inoo saara aad iyo aad baad u mahadsantii saaxiibayaal